kulankii baarlamaanka ee maanta ayaa waxaa looga hadlay xariga Korneel Cukaash oo ku xiran xabsiga dhexe ee Soomaaliya qaar ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay dalbadeen in la sii daayo Korneel Cukaash Cabdiqadar Cabdullaahi Maxamed ayaa warkani inoo haya xildhibaan Maxamed Maxamuud Axmed Kullihi ayaa maanta baarlamaanka Soomaaliya ka soo horjeediyay xariga Korneel Cukaash isagoo tilmaamay in muddo sharci darro uu ugu xiran yahay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho waxa uu inta ku daray xildhibaan Kullihi in xuquuqda bini'aadamka ay wax u dhibayso xariga Korneel Cukaash isagoo soo jeediyay in si degdeg ah arintaasi wax looga qabto gabay waa xuriyatul qool waa hees sarkaal ayaa wuxuu ku xiran yahay Cukaash la dhaho kaarshiraha aan maxkamad la soo saarin muddo ka badan hal bil taasina xuquuqda bini'aadamka wax u dhimayso Korneel Cusmaan Cilmi Guure Korneel Cukaash ayaa muddo ka badan 3 bilood u xiran gabay uu ka tiriyay dhibaatada haysata ciidamada xoogga dalka isagoo ku jira hadda xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho Korneel Cukaash ayaa mar la soo taagay maxkamadda ciidamada militariga iyadoo la sheegay in maxkamaddu ay amartay in cadeymihiisa la soo dhameystiro 27kii bishii 8 sanadkii 2014 ayaa Korneel Cusmaan Cilmi Guure Korneel Cukaash tiriyay gabay ugu magac daray fariin qaran taasi oo kaga hadlayay dhibaatada haysata ciidanka xoogga dalka maalmo kadib ayaa lagu xiray amar ka soo baxay taliyaha ciidanka xoogga dalka Daayir Aadan Cilmi Indha Qarshe waxaana gabayga uu tiriyay Korneel Cukaash kamid ahaa military qab weyn baan ahayn taniya qaabiile qawadeena waa wada ognahay mana qarsoonayn dawladihiina soo qaabilaa qoomamayn jiray qasaarihii aan gaarsiin jirnay maanta qirayaan indha qariye intuu qaaliye qoonku waa baay militariga qaylada dhaxtaal qaranku muu ee militariga gaajadu disho gaardin kari waayay militariga gaabsanahayo goodi kari waayay militariga gaadiid wadada gooshi kari waayay militariga goobihii dagaal guulka dhali waayay militariga gobonnimo ka tagay ee gunnimo doortay oo cadawga goonyaha fadhiya gaari kari waayay waxa geeyay heerkaas hadaan maanta garan weynay gaashaandhigeena wadaan ku galinahay maxaan geesh dhisnaa taliskii baa cuni garaamkii banihii hadii aanan ahayn maba dhawaaqeen dhididkeena baa lagu dhistaa saraha dhaadheer nooga dhiga dhurbeeluhu intuusan dhoofin aan qabanno mid dhintiya mid dhaawaca midka dhadida noo taagan dhammaanteen dib weyn baan qabnaa dhuunta noo galay sida aan u dhuubanahay naga dhab weeyaan dhakafaar waxa nagu dilo goday dhafoorkeena waa la kala dhantaalaa wuxuu qaranku soo dhiibay